السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب بيال واتحانهيني aynu kaga hadlaynay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waana qaybtii 16aad waxaynu dul taaganahay aynu faahfaahin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo dhulka miyiga ee reer guuraagu dego markaan leeyahay dhulka miyiga ah waxaan ka saarayaa magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo degmooyinku meelahay ku yaalaan iyaga laftooda waa dhul Soomaa saadateed ayaan u qayday oo u idhi waxaynu falanqayn doonaa ama aynu dul istaagi doonaa dhulka miyiga ah waxaynu haddii la yiraahdo kali sheegi doonaa qaybaha uu kala baxo iyo sida uu yaallo soo dhawaada guuleystayaal dhulka mar waxaa loo qaybiyaa dul iyo dooxo ama dul iyo diil dul waxaa laga wadaa waa dhulka taaginka ah ee biyuhu ka soo degaan sida haaraha jarriyaha xagowyada fiiqa ama wixii la mid ah waa dhulka taaga ah ee biyuhu ay ka soo degaan markii carab jalqinta la sameeyay waa ka dhihi jireen jeertii dhaba jirriso jees dhibcini dhardesaa jooga ko cilin dad ay soo day carabkaagi uu lawan laami ama maarta marka dambe si kala u hadliba dushu marka waa sidaas oo waa dhulka taaga ee biyuhu ayna fadhiisanin ee ka soo degaan ama buur leh ama haar leh ama koos leh ama jarri leh ama xagoog leh waa magacyahaas ay leeyihiin marka waxaa la dhahaa dul baa la dhahaa doox ama diil waa dhul siman oo aan lahayn buur iyo meel taagan toona dhulkaas siman biyuhu way ku nastaan caws badan baa ka baxa dhir badan iyo hawd bay noqotaa dhir badan bay yeelataa nooc kasta ka baxa dhulka la yiraahdo dooxa ama diisha biyaha maraya ama fadhiisanaya meelaha ay maraan iyo meelaha ay fadhiistaan iyaga laftooda magacyay leeyihiin meelaha ay fadhiistaan waxaa loo yaqaanaa balli dhiijaan xurfad iyo wixii la mid ah biyuhu markay socdaan ama ay maartay qulqulayaan ama ay fadhiyaan waxay noqon karaan xareed dhoobo wadal ajo iyo wixii la mid ah hadday fadhiyaan iyo hadday socdaan intaa mid bay noqdaan ama waa biyo xareeda oo macaan oo la cabi karo ama waa biyo dhooba ama waa wadal ama waa ajo ama waa xareedii aan la taabanin oo haweeye macaankoodii wata ajo waxaa laga wadaa marka intay xoolo dhex galaan ku kaakaajaan ayay isbedelayaan wadalkuna waa biyo madow oo waxa weeye in badan ku jiray meesha kadibna madoobaaday bilaan ahaan iyo ur ahaanba meelaha la maro ee dhulka ah waxaa loo yaqaanaa waddo wadiiqo wedwede ama wedwed toore dhabbe suryo malko jeer iyo wixii la mid ah inta hadda aan soo sheegay si guud waddo waa la iska wada dhihi karaayo waddo way noqdaan wadiiqana way noqdaan wedwedna way noqdaan toorena way noqdaan dhabbana wuu noqdaa suryana way noqdaan malkana marka waddo iyo wadiiqo waa isku mid wedwed iyo toorena waa isku mid laakiin way yar kala duwan yihiin wedwed waa waddo dhuuban oo ciidhi ah toorana waa waddada inta badan lo'du samaysato dhabbana inta badan waa wax la wada maro oo jabiska weyn baa dhaba la yidhaahdaa halkaas ka jabsaday geeli waddada loo yidhaahdaa suryo waa meel laba geed dhexdooda laga dusay ama xidh meel laga dusay weeye malkana waa meel maaragtay laag iyo webi iyo meel laga jeexayo weeye jeertuna waa buur la fananayo marka waa dhulka la maro la socdo meelaha laga maro inta badan xidhka oo kale
suryaa laga dusaa bannaanka iyo dhulka yar saddex socodkaana dee waxa la qaada wadooyinka weeye malkadana waxaa laga gudbaa laagaha iyo jeertuna buuraha laga fantaa ama lagu fuulaa mar labaad dhulka waxaa loo qaybiyaa duur iyo daleed duur waxaa laga wadaa dhulka leh xidhka kaynta juuqda darinta iyo wixii lamid ah xidh waa meesha hawdka ahaa ee geedaha badan ee meel maaragtay laga baxo fiican aan lahayn ayaa la yidhahdaa xidh kaynna waa xidh yar un oo kaas waynan sheegaynay ka yar juuqduna waa la mid darintuna waa la mid ee dadka kala duwanoo dee qoloba sibay u taqaanaa daleedda waxaa loo yaqaanaa dhulka bannaan sida banka kaxda daleedda iyo wixii lamid ah waa dhulka bannaan ee aan geedaha lahayn ayaa loo yaqaanaa daleed mar saddexaad dhulka waxaa loo qaybiyaa dalsan iyo dalxun dalsan waa dhulka fiican ee daaqa wanaagsan ay xooluhu ku cayilaan waana la yaqaanaayo markii la arko xoolaha bilaantooda ayaa laga garan dalxunkuna waa meel xoolaha u daran oo daaqeedu uusan dhadhan iyo nacfi u lahayn saasaana loo yidhi dalxun mar afraad dhulka waxaa loo qaybiyaa 4 qaybood 1 suubaan 2 dibir 3 aracad 4 iyo labeeb suubaan waa dhulka ciidda guduudan maaragtay geed midhoodku iyo geed adayguba ku badan yahay inta badanna daaqa wanaagsan ee xooluhu aad u jecel yihiin dibirku waa dhulka ciidda cad leh waxaana ku badan geed nugeylka iyo geed jileeca waana dhulka inta badan ceelasha laga qoto biyo tar buuna u badan yahayo laagaha iyo farqaha iyo inta badan dhulka dibirka ayaa iska leh ceelashana inta badan dhulka dibirka ayaa laga qodaayo waxaa ku badan geed nugeylka xadiga iyo maaragtay geedaha durba caleenta daadiya ayaa ku badan caracadku waa dhul ciiddiisu sida haddaba sheegayno ay caddahay aadna uguma badna dhulka waxaana ka baxa geedaha la yidhahdo gumarta geeda badneed ugama baxaan kaa hadda aan soo sheegnay suubaanka waxaa ku dhex jira dhul la yidhaahdo asaga laftiisu ciidda la yidhaahdo carra madowda aan kasoo gudubnay labeeb waxaa la dhaha jira waa dhul dibir iyo suubaan isku jira dan waxaa la yidhahdaa labeeb ma qurux badna oo maaragtay waa laga daaq fiican yahay inta haddaan kaga gudubna tilmaanta dhulka waxayna u gudbaynaa beerashadiisa dhulka waa la beertaa oo dalagyo kala duwan ayaa lagu beeraa kolbana siduu sabanku yahay iyo dadaalkaaga ayaa wax looga heli jirayoo dee dhulka hadduu roob intuu ku doo la abuurto si fiicanna loo falo oo la hagaajiyo beer qiimo badan baa kasoo bixi jirtay waxaa koowaad ee uu samayn jiray qofka tabcanaya dhulka muxuu ahaa abuur dhulkii oo abuur macay oo qoyan iyo qofku intuu samaysto miiga dheer ayuu dhulka la dhex qaadi jiray oo waa ku dhihi jiray miigo meel dayo meel bannaan dayo kolba meel baa ku dhufanaysaa kadibna 4 xabo ama 3 xabo oo masago ah ayuu ku ridayaa amaad ku ridaysaa markaad isbuuc joogto way soo baxaysaa beertii mar labaad waxay noqonaysaa dheeli wax la dhaho way soo miciyaysaa dheeli bay noqonaysaa dheeli markay noqoto waxaa lagu sameynayaa falitaan iyo hagaajin iyo nadaamin iyo hawlba ay u baahan intii la falo la hagaajiyo la ilaaliyo durba way soo baxdaa waxay marka noqotaa waxaad maalimaanka dambe beertii dheelida ahayd
halalkii u horreeyay qoodhiilaha ahaa maanta waa uur waad fiirinaysaayo kadibna waa canku hay baa la dhihi oo uurkii uu ka soo bixiyo sabulkii oo canku la soo bixi markuu canka la soo baxo in yar kadib way dhashay baa la dhihi oo waxaa ku xiga waa ilfuur masagadii baan aad u fuulin markii ilfuur baa la yidhaahdaa markii ilfuur noqoto waxaa ku xiga markaa dubayo waa la dubanayaa waa la cunayaa oo baarta masagadii beerta marxaladda afraadi waa way eeraantay yacni waa dhuux ingeg aan dhehe dhuux qoyan waxay u dhowdahay inay ingegto dubayadii bay soo dhaaftay waxaa ku xiga ay noqotaa oo marka marxaladda shanaad ah inay beerta ingegto xilligaa ay ingegto waxay u baahan tahay markii la gooyo dhulka lasoo dhigo waxaa laga dhigaa karoorkaas iyo dhulka ay taallo shaqo fara badan baa laga qabtaayo waa la kala guraa qayb waxay noqonaysaa ashaamud qayb waxay noqonaysaa dabsar qayb waxay noqonaysaa nadiif baa la kala gurayaa intii nadiifta dhan baa loo bixinayaa sifa loo tumo dabsarkiina dhan baa loo bixsanayaayo dee waa la cuniba asaga waa ku lahaa dadaal waxaan ka qaba dabsar baan ku abuuray dabsarkaa waa la hagaajisani qaybna waxay noqonaysaa ashaamudo waa beer xumaataye waxaa la isku dayay gaarkeeda in loo hagaajiyo beertii nadiifta ahayd ee la hagaajiyey in ashaamud iyo dabsar waxba aan ahayn iyada laba shay midba waa la sameeyaayo in intii god loo qodo la bakaar lagu shubto iyo in maaragtay la gato labadaa way noqotaa dabsarkuna isaga cunitaan buu leeyahay ashaamudkana intii la tumo oo wixii ku jira qashin ahaa laga saaro ayaa la isticmaali jirayoo dee sida masagadoo kale baa loo isticmaali intaan kusoo gabagayno waxaan rajaynayaa inaad fiicantihiin وبالله التوفيق